بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن كسو دواada qodobada ugu doorka roon barnaamijkeena xogaha maanta qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo aasaastay ciidamo la dagaalami doono maandooriyaha iyo waxyaabaha dhaqan xumada ah ee ku soo badanaya dalka gudihiisa ciidamadan saameyn ma ku yeelan doonaan dhaqan xumada ka socota baraha bulshada xog ayaan idinkaga haynaa maxaa kala socota qodobada ay u cuskatay dawladda Soomaaliya cayrinta Simon Malonga oo ahaa ku-xigeenka wakiilka midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya gaar ahaan AMISOM xog ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaan idin haynaa suuragalnimada in TPLF ay la wareegto caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa hanjabaad ka soo yeertay hogaamiyaha TPLF mar kale iyo barnaamijkeena oo fidsan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in talisku aasaasay ciidamo u gaar ah la dagaalanka waxyaabaha maanka dooriyaha iyo dhaqan xumada ku soo badanaysa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Xijaar ayaa sheegay in ay xareeyeen ciidamadaas ayna kaashan doonaan wasaaradaha cadaaladda iyo maamulka gobolka Banaadir si wax looga qabto isticmaalka waxyaabaha maanka dooriyaha sida qamrada xashiishka calaqa iyo dawooyinka daraagiska ee loo isticmaalo maandooriyanimada Cabdi Xasan Maxamed Xijaar taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay wax ka qaban doonaan arrintan uu ku sifeeyay qayb kamid ah sugidda amniga magaalada Muqdisho maadaama hadii ay kordhaan waxyaabaha maanka dooriyaha ay falalka amni darrana si badanayaan sidoo kale waxa uu sheegay in xasiloonida ay qayb ka tahay maandooriyaha lala dagaalamo bishii hore waxaan magacawnay hoggaanka diinta iyo dhaqanka kadib markii aan aragnay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool caasimadda Muqdisho oo akhlaaq darro ka muuqata isticmaalayana dawooyin xashiish waxyaabaha lagu sarqaamo sidoo kalena waxa kordhay faaxishooyinka sida awgeed waxaan diyaarinay ciidamo gaar ah oo la dagaalami doona arrimahaas ayuu yiri taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed muuqaalada ku faafay baraha bulshada waxa ka muuqday dhalinyaro qaarkood isku durayaan cirbadaha kadib markii ay qabatimeen halka goobaha qaarna lagu iibiyo xashiishka calaqa iyo waxyaabaha maanka dooriya oo halis ku ah caafimaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed haddaba dad badan ayaa waxay isweydiinayaan ciidamadani saameyn intee leeg ay ku yeelan karaan baraha bulshada muuqaalada lagu faafinayo ee la xiriira anshaxumada muwaadin haddana daawanaysa faalada noogu reeb aragtidaada waxay ciidamadu halkaasi ka bedeli karaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka raacdaysay ku-xigeenkii wakiilka midowga Afrika ee AMISOM kaas oo la sheegay in muddo asbuuca uu dalka kaga baxo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka cayrisay ku-xigeenkii ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsanaa Soomaaliya Simon Malonga oo ka soo jeeday dalka Uganda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ay u dirtay guddiga midowga Afrika ku wargelisay in Simon Malonga laga dhigay shaqsi aan laga rabin Soomaaliya waxaana lagu amray in uu dalka kaga baxo muddo 7 cisho gudahooda qoraalka ayaa intaasi ku daray in Malonga uu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyo aan waafaqsanayn waajibaadka AMISOM iyo istiraatiijiyadda amniga Soomaaliya haddaba ila wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa bixiyay xog ku saabsan sababaha dalka looga cayriyay Simon Malonga ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo bulsho iyo kuwa siyaasadeed oo dalka uu ka galay kuwaas oo soo jiitamayay muddo sida aan xogta ku helnay waxa qodobadaas nala wadaagay ila wareedyo ka tirsan wasaaradda amniga gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha dibadda Simon Malonga qodobada lagu eedeeyay waxa kamid ah inuu ku caan baxay ka shaqaynta waxyaabo dhaawacaya qarannimada Soomaaliya kana baxsan xuduudda maareynta howlgallada midowga Afrika ee AMISOM isagoo xoga qaldan oo ka fog waaqiciga mar waliba ka gudbin jiray dalka Soomaaliya waxa sidoo kale Simon Malonga cayradiisa loo adeegsaday inuu barqamaali jiray siyaasiyiin iyo qaar kamid ah madaxda Soomaalida isagoo ugu hanjabi jiray inuu ceebayn doono qaarna ugu cagajuglayn jiray inuu dili doono kuwa kalena uu isku diri jiray isagoo oo fariimo qaldan u kala gudbin jiray sidoo kale shaqsigan la cayriyay ayaa Soomaaliya aan u aqoonsanayn inay tahay qaran madax bannaan oo leh dawlad la aqoonsan yahay waxa uuna si bareer ah ugu kici jiray falal ka marakacaya arrimahaas isagoo shirarka iyo fagaarayaasha ka sheegi jiray in Soomaaliya aysan ka jirin dawlad balse ay tahay qabiilo mudan in mid kasta goonidiisa loola macaamilo
waxa uu isagoo adeegsanaya shaarka midowga Afrika uu jaajuusi jiray ciidamada iyo hay'ado kale oo dawladda Soomaaliya kala shaqeeya arrimaha amniga isaga oo xogaha iyo siraha dawladda la wadaagi jiray shakhsiyaad hay'ado iyo dawlado shisheeye waxa uu ka sameyn jiray macaash dhaqaale iyo ujeedooyin isaga u gaar ah qodobada kale ee dawladda Soomaaliya oo cuskata cayrinta shakhsigan waxa lagu sheegay in hay'adaha shisheeye uu kala shaqeyn jiray sidii dalka Soomaaliya looga gudbin lahaa siro khatar gelinaya amniga qaranka madax banaanida dalka iyo dawladnimada Soomaaliyeed dhanka kale Simon Malonga qodobada loo cuskaday cayrintiisa waxa kamid ahaa inuu baad ka qaadan jiray ganacsato iyo shirkado Soomaaliyeed isagoo ugu hanjabi jiray inuu ku eedayn doono falal argagixisnimo isla markaana ay argagixisada la leeyihiin gacan saar waxa uu sidoo kale si gaar ah u baadi jiray shirkadaha iyo shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyo xayndaabka Xalane waxaana arintaas fududeyn jiray saraakiil kale oo ajnabi ah kuwaas oo kamid ah howlwadeenada ka shaqeeya dalka gudihiisa ee ajnabta ah gaar ahaan in uu dhashay wadanka Zimbabwe sida xogahan ku helnay dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale baaraysa ku lug lahaanshaha Simon Malonga falal la xiriira jinsiga iyo faraxumeynta lagula kacay habla Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya xafiisyada AMISOM iyo sidoo kale xafiiskiisa kuwaas oo cadeymahooda ay dawladdu baaritaan ku wado Simon Malonga oo ahaa sargaal u dhashay wadanka Uganda ayaa noqonaya diblomaasigi labaad ee dalkeena laga cayriyo muddo 2 sano gudahooda isagoo oo la dul dhigay amarka ah dalkan lagama rabo loona qabtay muddo 7 cisho gudahooda inuu dalka isaga baxo hagaag waxa daawanaysaan barnaamijkeena xogaha maanta xogaga TPLF ee ka dagaalama gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa horumar ciidan ka sameeyay duulaanka ay ku wajahayaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxayna u jiraan wax aan ka badnayn 200 oo mayl oo u dhiganta 321 kiiloomitir ciidamada dawladda federaalka ayaa u dhabar adeegaya sidii ay u difaaci lahaayeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa muujinaya in dagaalkan aan looga maarmi doonin in shacabku ay hubka qaataan kuna biiraan duulaanka ku soo wajahan caasimadda Addis Ababa isagoo fariin muujinaysa arintaasi shacabka u diray afayeenka TPLF Getachew Reda oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in ujeedkooda ugu weyn uu yahay in ay ka hortagaan xasuuqa ka dhanka ah shacabka Tigreega oo uu ku eedeeyay inuu amar ku bixiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Getachew Reda waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in hamigooda uu yahay qabsashada magaalada Addis Ababa balse waxa uu tilmaamay in haddii ay dantu ka soo gasho gudaha ay u gali doonaan xarunta Itoobiya ee Addis Ababa dangaara kama lihin in aan galno caasimadda si aan xukunka ula wareegno nagumana jiro damaca dhul ballaarsi ujeedkeena kaliya ee aan leenahay ayaa ah in aan xaqiijino in Abiy uusan qatar ku sii ahaan shacabkeena haddii ujeedkaas aan ku gaari karno gelitaanka Addis Ababa waa geli doona ayuu sii raaciyay Getachew Reda afayeenka TPLF-ka xukuumadda Itoobiya ee Addis Ababa ayaa dhankeeda qorsheynaysa in duqeymo ay ku beegsato saldhigyada adag ee xogaga TPLF ay ka samaysteen deegaanka Amxaarada si ay uga durjiso magaalada Addis Ababa duulaanka uga soo foolka leh gobolka Amxaarada isla markaasna ay uga yareyso shacabka ku dhaqan magaalada Addis Ababa walwalka ay dareemayaan qaramada midoobay Mareykanka midowga Yurub iyo daneeyaasha arrimaha Itoobiya ayaa soo jeedinaya in xal lagu bedelo xiisadda ka aloosan Itoobiya si looga hortago burbur ku yimaada nidaamka dawladnimada dalka Itoobiya dagaalka ka socda Itoobiya ayaa sanad jirsaday waxaana dib u gurasho sameeyay ciidamada federaalka oo muddo kooban ku gaaray xarunta ismaamulka Tigreega ee Maqalla balse waxa dib isku soo abaabulay xoogagaas oo culays ciidan saaray ciidamada federaal halka ay dalkoodii dib ugu laabteen askartii Eritreyaanka ahaa ee ka barbar dagaalamaya ciidamada federaalka Itoobiya haddaba suuragal ma tahay in TPLF ay qabsadaan magaalada Addis Ababa commentiga nagula wadaaga waa mahadsantiin daawadayaal haddaan nala socotay subscribe saar channelkeena commentigana noogu reeb wixii aragti